munaasabadan qiimaha badan waa maalin aad iyo aad munaasabadeedu ay u weyn tahay 17 Ramadaan waa maalintii islaamka ciziga iyo sharafku uu soo hoyday waa maalintii Badar maalintii Ilaahay intuu abuurakii ugu khayrka badnaa uu guuleystay cadawga diinta islaamkana uu ka guuleystay weeye shuhadada maalintii loo asteeyay waaye waa maalin haddana dastuuriya markii la fiiriyo dastuurka galmudug waa maalin fasax ah oo shaqaalahoo dhammi uu fasax yahay waxa weeye sharaf bay noo tahay maanta inaan intaan isugu nimaadno inaan qoraxda u soo istaagno annagoo Ilaahay u baryayna walaalaheen xusaynana nicmada Ilaahayna siiyey kuna shukrinayna Soomaaliya lagama haysto nabadgelyada iyo nicmada Ilaahayna siiyo oo siiyey galmudug waxaan halkan runtii uga faa'iideysanayaa waxa weeye xabsiyada oo galmudug waxa ku jira dad maxaabiis ah maxaabiistii aan shabaab ahayn oo shabaabnimo aan u xirayn ama aan deyn dad kale oo ku leeyahay u xirayn ama dhiig ha ahaade ama duunyo kale ha ahaade saraakiisha waxaan faraynaa inay maanta fadligeeda ku cafiyaan oo markaa ay saas ku fasaxaan sidaas ayaan saraakiisha faraynaa biidnillaahi alkariim si ay noola wadaagaan faraxa aan ku faraxsannahay xuska shuhadada say noola wadaagaan waxaan leenahay maalintan qiimaha badan leh waa ka faa'iideysanaynaa waana isu faa'iideynaynaa aad iyo aad